Israa'iil ayaa wajahaysa hoos u dhac dhaqaale oo xooggan tan iyo wixii ka dambeeyay markii colaaduhu ay dib uga soo cusboonaadeen marinka Gaza toddobaadyadii la soo dhaafay halkaasi oo saacadihii ugu dambeeyay ay ka geysanaysay duqeymo dhinaca cirka ah oo aan loo meeldayn xilli ay Tel Aviv isku diyaarinayso dagaal dhinaca dhulka oo ay ku qaado marinka Gaza ayaa haddana waxa ay dhexda kaga jirtaa xiisad dhaqaale oo xooggan oo lagu tilmaamay in ay ka mid tahay kuwii ugu xumaa ee soo mara xukuumadda Yuhuudda warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa waxyaabaha saldhigga u ah hoos u dhaca dhaqaale ee Israa'iil saamaynta dagaalka Gaza uu ku yeelanayo iyo saadaasha aan wanaagsanayn ee ku soo foolay dhaqaalaheeda ugu horreyn aynu isla eegno inta jeer ee taariikhda uu hoos u dhacay dhaqaalaha Israa'iil iyo waxyaabaha sababta u ahaa laba xilli waa kuwa ugu muhiimsan kan koobaad waa xilliga dimuqraadiyadda hanti wadaagga ama waxa loogu yeedho social democratic period kaasi oo ka bilaabmaya sanadkii 1948 ilaa iyo laga soo gaadhayo 80meeyadii jeer kalena waa nidaamka hanti goosadka oo ku aastaysan 1985 ilaa iyo waqti xaadirkan nidaamka hanti wadaagga oo xilligaasi uu hormuud ka ahaa ra'iisul wasaarihii koobaad ee Israa'iil ay yeelato David Ben-Gurion iyo xasilooni darrada bariga dhexe ka taagneed waxa ay dhaxalsiisay hoos u dhac dhaqaale oo xooggan isbeddel dhaqaale oo Tel Aviv ay ku tallaabsatay horaantii 80meeyadii gaar ahaan xilligii uu hoggaanka hayay Shimon Peres ayaa lagu tilmaamay in uu wax weyn ka taray dhaqaalaha xumaaday ee Israa'iil ee xilligaasi waxa uu joojiyay deeqihii ay dawladdu bixinaysay isagoo kor u qaaday lacagaha dulsaarka taasina waxa ay ka caawisay in sicir bararka xooggan ee xilligaasi Yuhuuddu ay wajahaysay uu hoos u dhaco isla markaana dhaqaaluhu uu sameeyo kor u kac 5% gaadhsiisan taasi waxa loo arkay nidaamka dhaqaale ee garabka midig uu ka roonaaday kan bidixda ee muddada dheer ku dhaqmisay Israa'iil markii sida qasabka maamulka Yuhuudda looga hirgeliyay dhulka ay Falastiiniyiintu leeyihiin sanadkii 1948 waxa qarxay dagaalka koobaad ee u dhaxeeya Carabta iyo Israa'iil waxaana dagaalkaasi Israa'iil u dhaxalsiiyay dhaqaale xumo baahsan shaqo la'aanta iyo koritaan la'aanta dhaqaalaha ayaa noqotay mid xooggan laakiin muddadii u dhaxaysay 1952 ilaa iyo 70meeyadii waxa dhaqaalaha Israa'iil uu ahaa mid saamayn degdeg ah sameynaya soo saarka gudaha ayaa waxa uu kordhay 10% laakiin waxa uu ahaa kobac dhaqaale oo ay baritaarayeen deeqaha uu Mareykanku siinayo iyo magdhowga laga helayo Jarmalka dhaqaalaha la helayo ayaa muddadaasi waxa loo isticmaalay maalgelinta warshadaha iyo wax soo saarka beeraha iyo macdanta markii la soo gaadhay sanadkii 1952 soo saarka Israa'iil gaar ahaan waxa loo yaqaan GDP per capita waxa uu gaadhay kala badh wax soo saarka Ingiriiska ka hor intii aanay labada wadan isku mid noqon markii la gaadhay 1972 hoos u dhaca dhaqaale ee Israa'iil horaantii 70meeyadii ayaa dhaqaalaha Israa'iil waxa uu wajahay heerkii ugu xumaa hoos u dhaca labadan arrimood waa kuwa buddiga u ahaa dhaqaale xumada Israa'iil xilligaasi ay soo food saaray tan koobaad sida muuqata waxa ay ahayd dagaalka sanadkii 1967 Israa'iil waxay gashay dagaal muddo kooban socday kaasi oo ay la gashay qaar ka mid ah dalalka Carabta laakiin dagaalka kale ee loo yaqaan Yom Kippur oo dhacay sanadkii 1973 waxa uu bedelay wax walba inkastoo Israa'iil ay gadaalihii ku gacan saraysay dagaalka haddana bilowgii waxa uu soo gaarsiiyay khasaaro xooggan arrintaasina waxa ay dhaqaalaha Yuhuudda ku keentay hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran sababta labaad ee xilligaasi saamaysay dhaqaalaha Israa'iil waxay ahayd saliidda wixii ka dambeeyay 1973 dawladaha Carabta oo Sacuudiga ku jira waxa Israa'iil saareen xanibaad dhinaca saliidda ah taasi oo qiimaha saliidda ee Israa'iil ka dhigtay in uu 3 jibaarmo mar kaliya qiimaha saliidda ee biray ayaa Israa'iil waxa uu haystay ilaa iyo laga soo gaadhayay bartamihii 80meeyadii saamaynta Xamaas ee dhaqaalaha Israa'iil kadib markii ay dib u soo cusboonaatay xiisadda ka oogan marinka Gaza wixii ka dambeeyay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil waxayse soo tarayay khalkhalka gudaha Israa'iil ka jira iyo waliba cabsida xooggan ee Yuhuuddu ay ka qabaan weerarada Xamaas taasi waxa ay dhalisay in goobo badan oo ganacsi ay xidhmaan inkastoo oo goobaha qaarkood dib loo furay iyadoo la raacayo nidaamka feejignaanta adag dhacdo kalena waa in Israa'iil lacaga badan ay ku bixisay duqeymaha bareerka ay ka geysanayso marinka Gaza iyadoo xilligani diyaarinaysa in ciidamadeeda lugta ay ku gasho marinka Gaza dhaqaalaha Israa'iil ayaa min muddo ah waxa uu ahaa kan ugu horumarsan wadamada bariga dhexe iyadoo horumarka tiknoolajiyadda iyo dalxiisku ay qayb weyn ka yihiin xiisadda dagaal ee Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxa ay saamaysay qaybaha kala duwan ee wax soo saarka oo ay ku jiraan beeraha dhismaha iyo dalxiiska
arrin kale oo muhiim ah in la xuso waa dhawaaqii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ahaa in dalkiisu uu qorsheynayo weerar dhinaca bariga oo ku qaado marinka Gaza oo ah goob ay aad ugu xoogan yihiin mintidiinta Xamaas. boqolaal kun oo ka mid ah ciidamada kaydka ayaa dib loogu yeedhay, taasi oo ka dhigan in warshado badan ay lumiyaan cudud shaqaale oo tiro badan. colaadda dib uga soo cusboonaatay halkaasi ayaa sidaasi oo kale waxay hakisay dhaqdhaqaaqa kumanaan shaqaalaha oo ka imanayay daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto. duulaanka Israa'iil ay iclaamisay inay ku qaadayso marinka Gaza waa mid Tel Aviv uga baahan isku dhufsashada xisaabo adag, kasakow khasaaraha xooggan ee soo gaari kara military ahaan. haddana waxaa hubaal ah in uu yahay duulaan ciidan oo ku kacaya malaayiin dollar. kasakow hoos u dhaca ku yimi wax soo saarka Israa'iil waxaa sidoo kale qiimo beel xooggan uu ku yimi lacagta Israa'iil, inkasta oo bangiga dhexe uu isticmaalayo kharashaad ka badan 30 bilyan oo dollar, kuwaasi oo lagu baritaarayo dhaqaalaha sii liicaya ee Israa'iil. haddana falanqeeyaashu waxay qabaan in qiimatirka lacagta Israa'iil ku yimi uu yahay mid aan noociisa hore loo arag. ugu dambayntiina laba arrimood waa kuwa mar walba muhiim ah in la xuso, gaar ahaan marka ay heerkan taagan tahay. tan koowaad waa duulaanka Israa'iil ay qorsheynayso in ay ku qaado marinka Gaza, kaasi oo loo arko in uu sababi karo dagaal weyne ka dhaca bariga dhexe, taasina ay keenayso in dhaqaalaha iyo sicir bararka Israa'iil uu gaadho halka ugu sarreeya. sare u kac ku yimaada qiimaha saliidda ayaa isna mar walba suurtagal ah, sidii dhacday 1973. tan labaad uguna dambaysana waa hoos u dhac dhaqaale oo Israa'iil soo food saara, kaasi oo saamayn ku yeesha siyaasaddeeda gudaha. toddobaadyadii la soo dhaafay ururada mucaaradka ah waxay xukuumadda talada haysa ku eedaynayeen in ay iyadu mas'uul ka tahay dhaqaale xumada soo food saartay Israa'iil. arrintan ayaa waxaa loo arkaa in xasilooni darro siyaasadeed ay mar kale Tel Aviv martigelin doonto.